oo cilmi baarisyo ah isuguna jira joornaallo, qormooyin, dukumentiyo muhiim u ah cilmi baarisyada iyo buugaag akademik ah. qaabka aad u isticmaalaysid maktabaddan, marka hore qaybta wax laga raadiyo ama searchinka ayaad ku qoraysaa cinwaanka aad rabtid, kadibna waxaa kuu soo baxaya kumanaan natiijo. maktabaddu waxay sidoo kale leedahay AI kaaga dhex baaraya xogta aad rabtid 55 milyan ee cilmi baarisood. haddaba sidee isaga diiwaangelin kartaa, lacagtana u bixin kartaa? dadka adeegsanaya maktabaddan waxaa loo kala qaybiyey 3 qaybood oo kala ah. qaybta koowaad waa arday ay jaamacaddiisu xubin ka tahay Somali Digital Library. ardaygaasi wuxuu ku soo geli karaa website-ka lambarka ID kaarka jaamacaddiisa oo kaliya. qaybta labaad waa ardayga aysan jaamacaddiisu xubin ka ahayn Somali Digital Library, wuxuu bixinayaa $17, waana hal mar sanadkiiba. qaybta saddexaad waa qofka cilmi baaraha ah ee aan ka socon jaamacad, isaguna wuxuu bixinayaa $28, waana hal mar sanadkiiba. maxay suuragelinaysaa maktabadda Somali Digital Library? maktabaddan dijitaalka ah waa maktabad u suurtagelinaysa ardayda, macallimiinta jaamacadaha, hay-adaha iyo cilmi baarayaasha Soomaaliyeed inay ka heli karaan database ay ku jiraan malaayiin buugaag, nuqullo jaamacadeed, qoraallo cilmi baariseed iyo dukumentiyo muhiim u ah cilmi baarisyada. Somali Digital Library waxay xiriir wada shaqayn iyo iskaashi ah la leedahay Zendi Plus oo leh maktabad caalami ah oo malaayiin qoraallo ah wax looga baaran karo habka casriga ee dijitaalka ah. wada shaqayntaasina waa midda u suuragelisay Somali Digital Library inay awood u yeelato soo gudbinta malaayiintaas dukumenti. haddii aan soo koobno, ujeedooyinka ka dambeeya aasaaska maktabaddan waxaa ka mid ah 1. in guud ahaan la dhiirigeliyo sare u qaadidda tayeynta waxbarashada iyo cilmi baarista Soomaaliyeed. 2. in ardayda qoraysa buugga sanadka u dambeeya jaamacadda iyo kuwa daraasaadka sare ku jira ay helaan maraajiic ama references ku filan oo ay cilmi baaristooda ku xoojiyaan. 3. in cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ay ka kaaftoomaan safarrada ay dibadda ugu aadaan inay u helaan cilmi baaristooda maraajiic ku filan. 4. in hay-adaha cilmi baarista iyo macaahiddu heli karaan qoraalladii u dambeeyey ee cilmi baarayaasha caalamku ay ku daabiceen maktabadaha. iyo qodobka 5 oo ah in maktabaddu ay faafiso ama baahiso buugaagta ay qoraan qorayaasha Soomaaliyeed haddii ay ka soo gudbaan habraacyada u degsan maktabadda SOMDL, taasoo ka qayb qaadanaysa in buuggu uu gaaro malaayiin akhristayaal ah. haddaba hadda ka faa'iidayso fursaddan oo ku soo biir kumanaanka cilmi baare ee ay SOMDL u fududaysay hayaankoodii cilmi baariseed.